wanaagsan ciyaarteena meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha tiyuba aad ka daawanaysaan qodobo xiiso badan ayaa la idinkugu soo gudbinaa fiidnimadana qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah baarsha oo ugu dambeyn garab galaysa kooxda kubadda cagta ee Arsenal isla markaana Coutinho oo la xambaarsan yahay ayaa loo keenay doona qaabka lagu siinayo ayaan ku hayaa xidiga ugu fiican la liiga daayirada baarsha waxa uu soo baxaya New Xavi ka tagin naadiga kubadda cagta ee Real Madrid oo haysta Cristiano Ronaldo cusub iyo waliba warar kale oo ku saabsan caalamka kubadda cagta naadiga kubadda cagta ee Atletico macalinkeeda Simeone oo isagu wuxuu leeyahay kulankii Liverpool wuxuu ii ahaa mid kamid ah taariikhda kulamadii aan leeyliye kooxda Atletico ee ebid ugu fiicnaa yaabka Premier League aan kugu hayo waa laga yaabay ninka la yiraahdo Besaka inta jeero loo gambiyay xataa looma gambin ninka la yiraahdo Granit Xhaka ninka uu dadku waa qabtaa soo lama lahayn waliba Firmino ilaahay baa ka caraday goolasha marka ay sheekada joogto garoonka Anfield iyo kuwa kale oo suuqa inta ay ka badan ku daawo xubinta labaad ee wararkeena kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran yaabka Premier League ayaan ku hormari doonaa iyo xogo cajiiba oo aan fariir kugu ridi doona oo laga diiwaan geliyay Premier League waxa lagu leeyahay Burnley iyo Southampton iyo waliba Everton lagu daray Crystal Palace ayaa ka guulo badan marka la barbar dhigo kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal Arsenal guulaha ay badisay xiliyaareedkan intaba aan soo sheegnay way ka guulal badan yihiin xitaa ku darso Bournemouth iyadu guuldarro ayaa ka soo gaartay kulankii Burnley haba ahaatee kulankaas wuxuu ahaa kii markaas ugu shoodadka yaraa marka la barbar dhigo kulamada kale ee Premier League laga ciyaaray kaliya 5 shoot baa la isku tuuray baa la yiri waliba Firmino isagu goolna kuma uusan dhalin garoonka Anfield waa ka caradan yahay odagu waa caawiya kooxdiisu waa garab galaa wax badan buu u sameeyaa laakiin Anfield markay sheekada joogto wax gool kuma uusan dhalin leeyahay waliba naadiga kubadda cagta ee Arsenal xidigeeda Mas'uud Ozil waxa la yiraahdaa boqorka caawinta laakiin hal caawin buu sameeyay ku dhawaad 1500 oo daqiiqo isagu ciyaaray ka waran 1400 oo daqiiqo 48 ayaa lagu leeyahay si dhaafaysa isagu hal caawin buu sameeyay boqorkii waa ka jajaban tahay waliba ma jiro ciyaaryahanno ka baas badan marka laga hadlayo ciyaaryahanada cilciska baaskoodu Virgil van Dijk ka waran 88 dhibic ayaa la sii dhaafaya marka la barbar dhigo xidigaha kale oo ninka la yiraahdo Virgil van Dijk waxa leedahay Jorginho marka kubadisada baaska ku fiicnaa ma Xavi baa soo baxay oo garoomada markaas ku soo laabtay leeyahay mise waa sidee xaalku marka ninka waa laga yaaban yahay isaguna Virgil waa xidig kale oo marka yaabka loo diiwaan geliyo Liverpool 19 qalad markaas iyadoo ay horseeday baa lagu leeyahay oo goolal markaas iyagu lagu dhaliyo waliba naadiga kubadda cagta ee iyadu markaas Liverpool xidigeeda Sadio Mane 15 fursadood buu isagu lumiyay oo qasaariye baa lagu leeyahay wuxuuna la mid yahay mid kamid ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee Sheffield Xhaka marka la barbar dhigo 24 buu haystaa Xhaka iyo Basaka ayaaba loo gambis badan yahay dhinaciisa lagu ordi karaa marka Xhaka isugu tagin marka waa ka waxyaabahan waxay ahayn waxyaabo laga diiwaan geliyay isla markaana Madison naadi weyn baa doondoonaya waliba isagu 3 caawin kaliya buu leeyahay Premier League tan iyo xiliyaareedkan yaabka ninka loo diiwaan geliyay waxyaabahaas ayaa kamid ah sheekada marka waxay kamid yihiin waxyaabo markaas laga diiwaan geliyay Premier League oo dhawaan soo laaban doona naadiga kubadda cagta Liverpool garoonkeedu waa lama galay macnaha Anfield laakiin hal koox bay markaas iyadoo la galay u tahay xerada lama galay kaliya hal koox baa gali karaysa oo markaas iyadu haysata warqada ogolaashaha lagu gali karayo uma baahna xataa furo inay hesho iyadu waa automatic marka uu galbaabkooda galaan buu caawaye iyagoon ogeyn bay galayaan waana soo baxayaan waa Atletico Madrid kaliya kooxdan iyadu waa ay ku adkaatay garoonka isla markaana ciyaar dramatic ah ay kaga soo adkaadeen kooxda kubadda cagta Liverpool markaas ay ku soo dubteen garoonka waliba ciyaar cajiib ahayd ay kaga soo laabteen Liverpool laba gool ee dhalisay inta laga keenay liirho qabso aakhirkii ciyaartana waa Champions League looga saaray Simeone ciyaarta buu ka hadlay wuxuu isagu yiri guusha aanu ka gaarnay Liverpool waxay tahay mid markaas ka duwan taariikhdeena marka la barbar dhigo marka laga hadlayo kulamada kale ciyaarna buu yiri waxay kamid tahay mid kamid ah kuwa ugu xiisaha badnaa taariikhda Atletico aan hogaamiye buu leeyahay waxaan rajaynayaa buu yiri inaan u ciyaarno kulamada aan sidaan u ciyaarno Liverpool ciyaartii Anfield oo kale inaan u ciyaarno buu leeyahay 120 daqiiqo waan rumaysnayn buu yiri isla markaana waxaan rajaynaynaa in aanu sii wadno buu yiri Champions League meel aanu gaarno marka Liverpool halka garoonkeeda lama galayga hal koox kaliya buu la galay u yahay taa kaliya inta markaas isla mid dhigtaan oo Atletico baa nahay tiraadaan
baarkani lagu soo dhufto waa idinka hadde xidig daayar oo isagu 16 jir ah ayaa ku geeriyooday wadankaasi Mexico kadib markii uu ku baxay gacanta booliska wadankaasi ninkan ayaa dhacdadiisu yaab ay lahayd isla markaana waa wiil daayar buu ahaa wiilkan waa uu geeriyooday geeridiisuna waxay ka dambeysay kadib markii boolisku ay dileen canugaasi laakiin weliga muuqaal ayaa laga qabtay isla markaana muuqaalka saameyn gaar ah ayuu lahaa ninkan geeridiisa horta dad fara badan ayaa ka qayb galay canuga daayar isla markaana kamid ahaa xidigaha daayarada ee mustaqbal u lahaa wadankaasi Mexico muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxa uu ahaa saaxiibadiisa qaar kamid ay isugu yimaadeen isla markaana sanduuqa isagu markaasi meedkiisa ayaa laga sameeyay muuqaal yaab leh tanina waxay ka dambeysay kadib markii saaxiibadiisu film yar inay u sameeyay ay go'aansadeen saaxiibadiisu ayaa kubad soo qaatay isla markaana goosha dhinaciisa ayaa la dhigay sanduuqa markaas kubadda lagu dhuftay goosha iyadoona goolhayihii isagu uu taagnaa kubadda ay ka dhalatay macnaha iyadoo laga dhigayo isagoo gool dhaliyo kale dabaaldega marka gool xidig uu dhaliyo soo isaga laguma dabaaldego waxa la arkay marka saaxiibadiisii oo marka sanduuqi inta wada tagay isla markaana mar qura ku wada dabaaldegaya iyagoo muujinaya sida u garab taagan yihiin muuqaalkan wuxuu qabsaday baraha bulshada isla markaana si weyn ayaa loo hadalhayay wariye lagu magacaabo Guillermo Shus ayaa isagu waxa uu baahiyay muuqaalkaas isla markaana waa wariye dhanka ciyaaraha qusayo fariinta dhalinyaradaasi saameyn weyn bay yeelatay meel dheer ayayna gaartay fariintoodu wiilka ku baxay gacanta booliska ayayna markaasi ahaayeen kuwa garab istaag saaxiibkooda ayuu ahaa marka garab istaag bay u sameynayeen haddaba naadiga kubadda cagta Barcelona waxay yeelanaysaa shaafiga cusub baa lagu leeyahay naadiga Real Sociedad xidiga isaga u ciyaarana kooxda kubadda cagta Madrid ay leedahana waa laga yaaban yahay midka Mallorca Madrid iyadoo ay leedahay sidoo kale ha ka tagin xidigaha ugu fiican la liiga daayarada isla markaana qiimahoodu aad iyo aad u sareeyo ayaa iyagu la soo saaray waliba xidigaha waxa ku jira shaafiga cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona أنا كور مرنو حديقة كوبو مايوركا بو كتر سنياي وحلا يرهدا ميسيغا جابان ويلكا كوعدو كبدا عكتا مدريد با اسكالي اسلامار كان مستقبل كحوكمي دي حديقها مركز ugu fiican wiilka Mallorca daamahda ku jooga waa la wada sugaya mustaqbal weyn buu isagu leeyahay baa leeyahay wuxuuna ka mid noqon doonaa xidigaha ugu qaalisan Spain waliba daayirada 19 jirada ugu fiican buu ku jiraa isagu Ferran Torres waa wiil kale oo 20 jir isla markaana si weyn loo hadalayo 100 milyan ayaa qiimihiisa lagu qiyaasaya waliba xiliyaareedka soo aadan naadiyo dhowr ayaa u tartamayo Liverpool naadiga Arsenal Chelsea Manchester United iyo waliba Barcelona iyo waliba naadiga kale Real Madrid intuu waxay ayaan kuwa doonayo xidigan rabe safkooda inay geeyaan sidoo kale Ricky Puig waxa la yiraahdaa wiilkan waa Xavi cusub Neo Xavi ayaa la yiraahdaa ama Andres Iniesta cusub ee kooxda kubadda cagta Blaugrana ayaa la yiraahdaa ninka Ricky Puig ayaa la yiraahdaa waa wiil daayar dabcan Real Barcelona way garanayaan waa wiil markaas akademiyada ka soo baxay La Masia waana mid kamid ah xidigaha ugu fiican ee soo saartay waliba booska Rakitic hadda maadaama uu isagu wax soo shaqeeyay Rakitic laakiin hadda marka laga hadlayo daadiisu waxa la leeyahay ma saamaxayso boos inuu ka helo hadii boos uu ka helana meel dheer ayuu gaarsiinaya laakiin wali naadiga kubadda cagta Barcelona boos joogta kama uusan helin xidigan waxa la leeyahay wuxuu kamid yahay xidigaha ugu fiican naadiga kubadda cagta Blaugrana sidoo kale xidiga Moriba la yiraahdo waa xidig kale oo madow oo daayaro kooxda kubadda cagta Barcelona ka tirsan sidoo kale ka tagin Ansu Fati isaguna waa wiil kale oo aad garanaysaan isla markaana wax badan laga sheekeeyo baahnayn Vinicius Junior ama Junior Vinicius naadiga kubadda cagta ee marka Madrid buu isagu ka tirsan yahay waa xidig daayaro balaaye ka dhacdayo laga yaabay gambiskiisu waxaad leedahay ninka Maradona soo noolaaday mise waa sidii xaalku ma Bale dhar loo geliyaa mise waa ka Vinicius iyagu goolka ahaa buu ma aragtay ashku ahayn mooyaane isagu sidiisa kale aad buu ugu fiican yahay Rodrigo Goes waa wiil kale oo moohibadiisu odagii Bale ah baa ka yaabay wiilka waxa la yiri waa wiil meel dheer u socda isagu cajiiba wax badan sameyn karaya isaguna Madrid wuxuu ka mid yahay xidiga ugu fiican sidoo kale Spain kuwa markaas mustaqbalka kula ayuu ka mid yahay Ibrahim Diaz waa xidig kale oo marka Madrid laga laayay bariyahan Zizou kuma qanacsana ba socota laakiin waa xidig kale oo moohibad leh marka xidigahan waxay ka mid yihiin xidiga ugu fiican waxa ka mid ah xidiga Ander Real Sociedad ka tirsan iyo waliba xidiga Sunset oo Athletic Bilbao waa 19 jir ilaa 20 jir ugu fiican horyaalka wadanka Spain oo la soo saaray Barcelona waxay garab galaysaa kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal waxa leeyahay xidiga Philippe Coutinho wuxuu ka mid yahay xidigaha markaas suuqa yaala isla markaana xilciyaareedkan suuragal ay tahay lagu qaadan karayo Barcelona waxay ka taagan tahay yaa iga qaato xidigan aan siiya wiilkan isagu waa mid kamid ah kuwa ugu fiicnaa kooxda kubadda cagta Liverpool iyo bisaba ahaa bal xidig taariikh weyn ku lahaa kooxdaasi wuxuu u qabtay muddadii uu joogay isagu iyo sida uga dhex muuqdo horyaalka Premier League laakiin markii uu tagay Spain xidigu sida ugu qeylinayay kooxda kubadda cagta Barcelona taageeraashoodu waa wareeray wiilkii wareerkii ka raacay wuxuu aaday Jarmalka haba aaday xidigu waxa leeyahay wax badan baa ka qaldan halka wili ilaa hadda uma toosin wareerkii halka uu ka soo qaaday wili kuma toosin Gunners xidiga markaan way doonaysaa isla markaana amaah bay ku doonaysaa isagu laakiin mushkiladu waxay ka
taagnayd 13 milyan oo mushaaraadkiisa ama 250 kun toddobaadkii ma bixin kara Peter Arsenal maxay tahay anigu beesadan sameeyaa bay yiraahdeen anagu ma bangiyan ma furan warkiina ma ku jirno bay yiraahdeen nadiga kubadda cagta Liverpool ayaa la wiilkan isagu hadda u ciyaari jiray Barcelona wuxuu ka qaatay lacag ka badan 200 kun toddobaadkii haba ahaatee Barcelona marka waxay diyaar u tahay baa mushaarkiisa qayb kamid ah ana ka bixinaya beelada reer Arsenal warar Arsenal ana ka bixin doona Telegraph hadda waxay tilmaamaysaa Barcelona inay diyaar u tahay xidiga Arsenal qayb markaas ay doondoonayso qayb mushaaraadkiisa inay ka bixiso waxa dhici karaysaba 175 kun toddobaadkii xidiga markaas Arsenal diyaar bay u tahay laakiin qayb kamid ah kooxda kubadda cagta Barcelona ku daraysa baa leeyahay mid kamid ah haliyadii hore kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund kana mid ah mas'uuliyiinta kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ama Signal Iduna Park kooxda ku ciyaarta ayaa wuxuu ka hadlayaa Jadon Sancho maalmihii ugu dambeeyay waxa la tilmaamayay Liverpool in rajo weyn ay ka leedahay marba hadii marka Vinner ay ku soo fashilmeen xidigan iyagu inay heli karayaan laakiin ha ka tagin Manchester United iyo Chelsea oo iyaguna si weyn xidiga markaas loola xiriirinayo Sky Sport ayuu la hadlay wuxuu yiri laba mushkiladood baa jirtay oo ku aadana wiilkan timajarnimadiisa iyo timaha uu jartay iyo mashaakil kale oo dhankaas la xiriiray laakiin hoos baa loo dhaqayaa sidoo kale wuxuu sheegay in warar badan oo markaas baraha bulshada iyo waliba caalamka kubadda cagta laga sheegayo aysan waxba ka jirin samarkaana iyagoo aysan daneenin wararka la xiriirinayo xidigan Liverpool iyo kooxo kale laakiin geesta kale xitaa waxa wax laga weydiiyay ninka Ashraf Hakimi iyo waliba arinta ku saabsan u laabashadiisa Real Madrid hadda wuxuu yiri marka laga hadlayo ninkan u laabashadiisa Real Madrid ma cadda buu yiri la hadda oo wax ma jiraan laakiin waan sugi doonaa ilaa iyo dhamaadka xilliyeedka horyaalka wadanka Spain hadii uu noqonayo hadii kale buu yiri laacib muhiim noo ahaan doona isla markaana kooxda kubadda cagta Dortmund safkeeda ka tirsan yahay buu leeyahay Brazilianka Belena isagu wuxuu ka hadlayaa Cristiano Ronaldo iyo Messi cida u fiican isla markaana wuxuu leeyahay Ronaldo ayaa ah mid ka fiican Messi sidaas ayuu qabayo ninkan oo markaas isagu mid kamid ah telefishinada wadankaas Brazil la hadlay wuxuu yiri maanta laacibka ugu fiican waa Cristiano Ronaldo buu leeyahay sidaas buu aaminsan yahay ninka la yiraahdo Bele dhowr jeerna waa la sheegay isagu waxa mar aragnay isagoo leh Messi baa fiican mar waxa darkaysa Ronaldo waa fiican isagoo leh marka wuxuu leeyahay maanta waxaan dhihi karayaa Ronaldo ayaa mid fiican isla markaana marka la babar dhigo ninka la yiraahdo Lionel Messi hadaba waa ka Ronaldo wuxuu yiri isagu waa weeryahan laakiin Messi ma aha mid weeryahan sidaas buu isagu qabaa ninkan marka wax badan buu ka hadlayay iyo su'aalo badan oo la weydiiyay xitaa wuxuu sheegay in marka Zico Ronaldinho Ronaldo iyo waliba rag fara badan Johan Cruyff Frank Beckenbauer iyo rag kale buu ka sheekeeyo caalamka kubadda cagta saameyn ku leh haddaba naadiga kubadda cagta ee markaas iyadoo Manchester United kaalinta kuwad kuma jirto waxa la soo saaray tan iyo inta la bilaabay horyaalka Ingiriiska ha noqdo heerka koowaad markaas First Division midka loo aqoon jiray ama Premier League oo hadda loo yaqaano tan iyo taariikhdii la bilaabay naadiga ugu fiican iyo waliba marka dhibcaha urursadeen kulamada ciyaareen ayaa markaas la ururiyay naadiga kaalinta kuwad noqotay ayaa la ogaaday shabakada marka worldfootball.net ayaa iyadu ururisay isla markaana baraha bulshada lagu baahiyay isla markaana kuwa ugu weyn caalamka kubadda cagta ka faalooda iyagu waxay ka hadlayaan naadiga ugu fiican Premier League tan iyo taariikhda markaas horyaalka Ingiriiska la bilowday tan iyo marka magaca Premier League inta la bilaabay ilaa iyo xitaa magacii hore inta loo aqoon jiray macnaha tan iyo bilowgii Premier League ayaa leedahay kaalinta kowaad ku guuleystay Liverpool 463 kulan bay ciyaartay waliba 6922 dhibcood bay iyagu heleen kaalinta kood bay ku jirtaa Arsenal baa labaad oo 4162 kulan bay iyagu ciyaareen 6755 dhibcood bay urursadeen baa leeyahay Everton oo kale iyagu waxa lagu leeyahay tan iyo marka Premier League inta la bilaabay waxay heleen 4547 kulan oo ciyaarahooda ah sidoo kale 6683 dhibcood bay urursadeen Manchester United kaalinta afraad bay ku jirtaa 3807 kulan bay ciyaareen 6403 dhibcood bay urursadeen Aston Villa baa shanaad ah sidoo kale City waa lixaad baa lagu leeyahay iyagu kaalinta lixaad bay ku jiraan Tottenham baa toddobaad Chelsea sideed bay ku jiraan 3000 iyo xogaa bay ciyaareen 5000 dhibcood bay urursadeen waliba sagaalaad waxa ay Newcastle Sunderland waa tobanaad oo nadiga kubadda cagta West Brom baa tobanaad Blackburn Rovers iyaguna waa 12 baa leeyahay Bolton ayaa 13 waa Sheffield Wednesday 14 bay haystaan Wolves oo kale 15 bay haystaan Derby County 16 bay ku jiraan Sheffield ayaa 17 West Hamna waa 18 sidoo kale 19 waa Middlesbrough halka Leedsna 20 ay tahay Leeds waxa la rajaynayaa xilliyeedka soo aadan iyaguna noqdaan kuwa markaas iyagu ciyaari doona heerka koowaad waa ka hadaba aanu eegno marka waxa la soo saaray nambaradii ugu fiicnaa kooxda kubadda cagta Manchester United iyo xidiga ugu fiicnaa macnaha
boos kasta ama number kastaba waxaa laga soo qaatay labada xidig ee ugu fiicnaa taariikhda soo xirtay ka waran Giggs iyo Adnan Jones ayaa lagu leeyahay hadda tusaale numberka markaas 18 oo kale Ashley Young iyo wali waxa loo soo xushay ninka la yiraahdo Paul Scholes iyo Ashley Young ayaa loo soo xushay oo lagu leeyahay numberkaayo sidoo kale lixaad waxa loo soo xushay Laurent Blanc iyo Ian Stam sidoo kale numberka 20aad waxa loo soo xushay Fabio wiilka Fabio la dhihi jiray iyo waliba ninka la yiraahdo Solskjaer ayaa loo soo xushay sidoo kale York iyo waliba Ricardo ayaa numberka 19aad la siiyo iyaga ayaa kuwii ugu fiicnaa baa leeyahay Schmeichel iyo waliba ninka kale Bosnich ayaa ahay numberka 1aad kuwii ugu fiicnaa Cristiano Ronaldo iyo Michael Owen numberka 7aad kuwii ugu fiicnaa bay ahaayeen Adnan Jones iyo Ryan Giggs waxay ahay numberka markaas 12aad kuwii ugu fiicnaa marka waxay ahayn kuwii ugu fiicnaa numberada qaar kooxda kubadda cagta Manchester United laga soo saarayo hadaba Inter Milan waxay doonaysaa baa leeyahay difaaca kooxda kubadda cagta Nice wiilka la yiraahdo Sarr Inter waxay doonaysaa marka wiilka kooxda kubadda cagta Nice difaacooda ah isla markaana Sarr bay doonayaan isla markaana waxa dhici karaysa wiilka San Siro in la keeno Calcio Mercato ayaa sidaas ku waramaysa marka wararka suuqa caawa ay kamid yihiin isla markaana laga qorayo Inter Milan marka difaacaas bay doonaysaa naadiga kubadda cagta Barcelona waxa leeyahay waxay Real Madrid kula tartami doontaa xidiga Rayo Vallecano wiilka Luzi la yiraahdo bay kula tartami doontaa kooxda kubadda cagta Madrid sidaas Spain ay ku waramaysa Madrid waxay doonaysaa baa leeyahay xidiga Raheem Sterling iyo waliba De Bruyne iyadoo City laga ganaaxayo markaas oo Champions League laba xilciyaareed marka hadii lagu adkeeyo labada way bixi doonaan baa leeyahay marka Madrid iyadu way la socotaa baa leeyahay Dombele baa caawa sidaas ku waramaysa Liverpool waxa lagu leeyahay naadiga kubadda cagta ee marka Manchester United wali ma aysan isu dhiibino Jadon Sancho heshiiskiisa aan la isdhayn Liverpool iyadu waa lagu garaacay sababtoo ah Timo Werner baa lagu garaacay Luton Sport waxay tilmaamaysaa marka booska Liverpool hadda ay marka ka joogto tartamada xidiga Jadon Sancho maaha mid markaas United iyadu ay uga adkaatay United ay badisay maaha baa leeyahay isla markaana wiil rajo way qabtaa naadiga kubadda cagta Chelsea waxa dhici karaysa baa leeyahay xidiga Kurzawa in si bilaash ay ku soo qaataan sidaas France Football ay caawa ku waramaysa Chelsea waxa dhici karaysa baa leeyahay Kurzawa inay soo qaataan Atletico Madrid Juventus Inter iyo waliba kuwa kale ayaa doonaya xidigan iyagu inay qaataan Saul Atletico Madrid wuxuu leeyahay waa gurigeyga isla markaana meel la kama aadayo naadiga kubadda cagta markaas Atletico xidiga isagu u ciyaara wuxuu meesha ka saaraya wararka la xiriirinayo kooxda kubadda cagta Manchester United xidigan lagu tilmaamay maalmihii ugu dambeeyay in Solskjaer safkiisa uu ka mid noqonayo Chelsea waxay ku kalsoontahay baa leeyahay kaalmaha afraad ee Champions League hadii ay markaas ku dhamaysto oo Champions League u soo baxdo inay heli doonto xidiga kooxda kubadda cagta ee markaas Leicester u ciyaara Ben Chilwell naadiga kubadda cagta Barcelona gaasimeed wuxuu leeyahay xidiga Ansu Fati kama wada hadal kooxda kubadda cagta ee Manchester United markaana wax niyada nooguma jirto ama niyadeenu maaha inaan iibino xidig leeyahay Ansu Fati Jorginho iyo Sarri ma wada hadal baa leeyahay muddo sanada maalmihii ugu dambeeyay waxa la lahaa xidiga Chelsea wuxuu xiriir la leeyahay kooxda kubadda cagta Juventus kaas oo isagu aadayo isla markaana wiilka iyo abihi waa midoobayaan baa leeyahay kulamadii maanta dhacay hadii aanu ka hormarno horyaalka wadankaas Spain Deportivo Alaves iyo waliba Espanyol ayaa ciyaaray Espanyol waa garaacday kooxda Alaves oo 2 gool iyo waxba ayaa Espanyol iyadu ku adkaatay kulamada Bundesliga hadii aanu eegna kooxda kubadda cagta Wolfsburg iyo Freiburg barbara 2-2 ay sadaf weeyeen wada Bremen 5 gool bay ku xasuuqday kooxda Paderborn sidoo kale naadiga kubadda cagta Eintracht Frankfurt 4 gool ay ku garaacday kooxda Hertha Berlin Union Berlin 2 gool iyo gool bay Köln ku dubatay naadiga kubadda cagta Dortmund iyadu waa ay adkaatay isla markaana waqtigii geerida waliba 5 daqiiqo ee markaas iyadu ugu dambeeyay ayaa lagu leeyahay ayuu dhaliyay ninka markaasi Erling Haaland wiilka Isbag waa soo laabtay Haaland waa soo laabtay wiilka daqiiqadii geerida ah waliba 5 daqiiqo waa dhamaatay markii goolka dhaliyay ciyaartu waa dhamaatayba ninka la yiraahdo Rafael Guerrero gool buu dhaliyay daqiiqadii 65 daqiiqo laakiin waa la diiday goolkaas oo ma socon waxba kama soconay baa leeyahay marka Haaland isagoo gool buu dhaliyay kooxda kubadda cagta Dortmund waa adkaatay 3 dhibcood sas bay ku hereenba waliba qaybtii hore gool ma aysan dhalinaya lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Dortmund afartii kulan ee ugu dambeysay Bayern iyadoo markaas iyagu waa la garaacay laakiin marna ma aysan dhalin qaybtii hore iyaga ayaaba marka wax laga dhaliyay sidoo kale nadiif kubadda cagta ee Paderborn waxa lagu leeyahay barbaro ay qaybtii hore iyo eber ay ahayd Hertha Berlin sidoo kale eber qaybtii hore maanta hataa marka la fiiriyo kooxda Fortuna saas bay ahayd eber marka 60 daqiiqo ayaa badal lagu keenay oo lagu soo geliyay laakiin 90 daqiiqo kooxda ayuu furtay Andre Silva tan iyo dib markii loo bilaabay Bundesliga isaga ayaa kan ugu gool badan 6 gool buu dhaliyay Lewandowski ayaa 5 leh Kai isaguna wuxuu leeyahay haftaas ninka marka 5 gool buu leeyahay hadii aanu eegno ninka la yiraahdo markaas Robin van Persie waa laga yaabay wiilka absolutely maanta oo kale sanadkii 2014 waa laga yaabay Spain bay qabsadeen xulkiisu markaas bay 5 ka kiciyeen xulka qaranka wadanka Spain gool rigoraba u dhaliyay ninka Alonso la yiraahdo 30 daqiiqo maxaa ka qabsaday markaas ninka Robin van Persie la
yiraahdo waxa uu ka dhaliyay kubad madax ahayd oo la yaabay Robin ninka la Virg iyo Oliver van Persie Robin ayaa markaas kubadii jijifinay Ramos iyo Pique markaas iyagoo iskorkor saaran ka dhaliyay oo markaas jifo marka waa ka Robin van Persie oo maalintii madaxa uu ka dhalinay markaas madaxaas laakiin madax ma ahayno madax sheekadiisu madax dhaafay buu ahaayo midka ayaa daawanaysa markaas sawirka hadaba waa ka dhalasho wacan ninka la yiraahdo Koeman isagu 24 sano buu jira ka waran asu 24 jira wuxuu haystaa horyaalka wadankaasi Faransiiska sidoo kale Faransiiska ayuu ku guuleystay 2012 Talyaaniga ayaa lagu guuleystay macnaha Serie A baa la haystaa Faransiiska Ligue 1 baa la haystaa wali waxa la haystaa ka waran Jarmalka 15 16 afar Jarmalka laba Ligue 1 ka iyo hal Talyaaniga la iska haystaa ka waran 24 jir dhalasho wacan marka Koeman waa ka marka CV-giisa inta ba u gashay dhalasho wacan ninka la yiraahdo Valentin Malouda ninka 40 sano buu jirsadayba waliba 683 kulan buu isagu ciyaaray absolutely 126 gool baa la dhaliyay waliba 4 liigoon baa la ciyaaray FA Cup 3 baa lagu guuleystay hal Champions League Premier League Community Shield Chelsea buu isagu ciyaari jiray iyo waliba koox kale oo isagu u saftay ninkan maanta oo kale sanadkii 2018 waxay ahayd markii Naadiga Kubadda Cagta Madrid iyadoo ay ka habaarsatay ninkii Julian Lopetegui ahaa shaqo aysan u haynin bay u ballan qaadeen markaas shaqada uu haystayna ka soo daayeen tan waxay ka dambeysay kadib markii Julian Lopetegui si Madrid ay u cilaamisay isla markaana ay sheegtay ninka Madrid isaguna waqti waliba uu aadi lahaa koobka dunida isla markaana xulkiisa koobka dunida uu ku hogaamin lahaa Spain maqleen xilkii waa laga qaaday waxa la yiri koobka dunida ma tarmeysay hadda Madrid aadaysa markaas Spain dhan adiga inaad midaysa laga rabo ma anfacaysa baa la yiri ma anfacaysid wadada baa lagu soo ceeriyay ninkan 2 bil iyo 3 bil wuxuu joogay ma qaane ninkan hadana wadada lagu ceeriyay isaguna waa laga direebo waxa la yiraahday soco meeshaada ka bax marka Madrid waqti badanna kuma qaadan isagu fursadna lama siino waa la ceeriyay baa la yiri waliba marka laga hadlayo Bundesliga waa laga yaabay xiliyaareedkan Lewandowski ka waran 30 gool baa la iska leeyahay marka la barbar dhigo dhammaan horyaalada kale ma jiro inuu soo dhawaan kariya caawinta markaan ka hadlaynana Thomas Muller ayaa haysto 20 baa la haystaa ma jiro cid kale oo soo dhawaan kariya baa lagu leeyahay maanta oo kale waxay tahay sanadkii 2009 gabadhii ugu horeysay koobka dunida taariikh ka sameeysa 2003 2007 2012 iyo 2019 ka waran 5 jeer oo kala duwan koobka dunida ay gool ka dhalinaysa lagu leeyahay waana gabadha ma jirto ilaa gabar aan ahayn Marta iyada ayaa korkaas marka loo diiwaan galiyay baa leeyahay xubintan marka waa ka waxaan uga hadlaynay marka dhacdooyinkii waxaana June 13 maanta oo kale Robin van Persie waana xusnayo waxa saaruqda uu isagu dhaliyay kuma waan idin sheegnayo Mallorca caawa iyo Barcelona habeen dambana Real Madrid iyo Eibar xubinta labaad intaan ku kulmi doono waxaan kaaga tagayaa afar xidig baa jirta oo iyagu laba jeer ku guuleystay laacibka ugu fiican Premier League waa laacibka la yiraahdo Cristiano Ronaldo oo laba jeer isagu haysta isla markaana laacibka ugu fiican Premier League isagoo ku guuleystay laba jeer ninka la yiraahdo Alan Shearer oo isaguna haliyay kala isla markaana laba jeer ku guuleystay ninka la yiraahdo Bale oo isaguna xidig kala laba jeer haysta iyo Thierry Henry oo isaguna laba jeer haysta xubinta labaad ee wararkeena waa naga inta farqiimay ayaa daawan doonta insha Allah